maraakiib dagaal oo Turkigu uu leeyahay ayaa soo gaaray xeebaha Soomaaliya waxa ayna gaaf wareegayaan waqti xaadirkan xeebaha waqooyi ee Soomaaliya iyo gacanka cadan tanina waa fariin cad oo uu Turkigu u diray Israa'iil dhanka kale Iran ayaa maanta waxa ay qabatay maraakiib shidaal qaada kuwaasi oo marayay gacanka la yiraahdo Faris maraakiibtan iyo dadkii saarnaa shaqaalihii saarnaa ay gacanta ku dhigtay hadaba yihiin maraakiibtan wadamadee laga leeyahay sababta u qabatayse maxay yihiin qoraalkan aad arkaysaan waxa lagu daabacay wargeys ka soo baxay Israa'iil gumaysaha Israa'iil waxaana lagu sheegay in Israa'iil ay si dhow ula socoto arrimaha diblomaasiyadeed ee dalka Turkiga yani madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu ku marayay boqortooyada Sacuudiga boqoshooyinku ku marayay boqortooyada Sacuudiga iyo dalka Masar waa tahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo maanta hadlayna waxa uu sheegay in marka uu diyaaradda saaran yahay uu san seexan cabsi darteed hadaba ay tahay cid uu sidaas oo dhan uga baqanayo soo dhawaada marka hore muuqaalka like saar xogtan oo faahfaahsan ayaan kula wadaagaya marka hore muuqaalka like saar si uu meel dheer u gaaro subscribe dheh oo nagu soo biir si aad mar kastaba muuqaaladeena u aragto oo mahadsan tahay waa tahay maanta mas'uul kamid ah mas'uuliyiinta dalka Turkiga oo hadlay ayaa waxa uu sheegay in saddex markab oo waaweyn oo maraakiibta dagaalka ah inay ku sugan yihiin xeebaha Soomaaliya halkaasna ay ka howlgali doonaan hadaba howlgalka ay ka qabanayaan xeebaha Soomaaliya iyo waxyaabaha ay rabaan halkaasi in ay ka sameeyaan maxay tahay marka hore aan kula wadaago muuqaalkiisa ninkan mas'uulka dalka Turkiga u hadlay logistical support to our Somali-Turkish Task Force Command and to support the drilling ship Charo Bay which will conduct research activities in the maritime jurisdiction areas of the Federal Republic of Somalia. ninkan oo ah mas'uul ka tirsan mas'uuliyiinta dalka Turkiga oo ka warbixinaya ayaa waxa uu sheegay in saddexdan markab oo kala ah TCG Sankokta, TCG Golkofa iyo TCG Bafra saddexdan markab oo ah saddex markab oo dagaal oo dalka Turkiga laga leeyahay inay ka howlgalayaan xeebaha Soomaaliya iyo gacanka cadan inta u dhaxaysa January 3keeda ilaa iyo Febraayo 25keeda in ay ka howlgalayaan ayuu sheegay sidoo kale waxa uu ku daray in howlgalkaasi uu ku aadan yahay maraakiibtan in ay caawiyaan maraakiibta kale ee xeebaha Soomaaliya jooga kuwaasi oo loogu talagalay in ay ka qodaan shidaalka ku jira xeebaha Soomaaliya iyo sidoo kale in ay difaacaan xeebaha Soomaaliya maraakiibtan dagaalku marka waxa u joogaan xeebaha Soomaaliya in ay caawiyaan maraakiibtaas kale wixii ka dambeeyana dabcan waa ay laaban doonaan ciidamada cirka iyo ciidamada badda ee dalka Turkiga ayaa Soomaaliya jooga iyaga ayayna caawinayaan sababtaas ayna maraakiibta dalka Turkiga laga leeyahay ee dagaalku u joogaan hadda xeebaha Soomaaliya waa tahay dhanka kale markaan eegno dalka Iran ayaa maanta waxa lagu qabtay laba markab oo shidaal qaada laba markab oo ah maraakiibta shidaalka qaada ayaa lagu qabtay dawladda Iran ayaa gacanta ku dhigtay waa laba markab oo shidaalka qaada waxa ay marayeen gacanka Faris meesha lagu magacaabo shaqaalaha maraakiibtan saarnaa waxa ay gaarayeen ilaa iyo 15 qofood ay marayeen oo ajaanib ah waxa soo qabtay ciidamada kacaanka ilaalada qaranka Iran ayaa gacanta ku soo dhigay waxaana lagu eedeeyay marka in ay tahriibinayeen shidaal مشدال إيران يعني ودن كإيران شدال كيسمية تهريبينيين مسه وحوي ماشى أي مرسينيين تاسف على الله معدين لكن كلا ما أيسن شيء والضمادة اللي قال لي هي مراكب تن شدال كتهريبينيين يصيروا كلا الشقالة لقبتي ماشى يكسو جيدان والضمادة يكسو كلا جيدان إيجانا ما أيسن شيء لكن لبا مركب ووين وشدال كقادة إن دولة إيران قبتي سيداسي أي ورباهين تيدكو عديسي أرنتن وحي كسو آدي ساحل حيسد برجة دح أي آد ماركتي قصن تهاي مريكان كنا ومالميه وجودن بي أسبوعين وجودن بي وكسو دابولي maraakiibtiisa diyaaradaha qaada iyo sidoo kale maaragtay diyaaradaha casriga uu bariga dhexe soo dhigay waa tahay qoraalkan aad arkaysaan waxa lagu soo qoray wargeyskan lagu magacaabo The Jerusalem Post waxa lagu soo qoray Israa'iil ayaa markaa isha waxa ay ku haysaa dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadeed ee dalka Turkiga madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan safaradii uu ku marayay Saudi Arabia iyo sidoo kale Masar ayay isha ku haysaa waxa ay arintani ka dhigan tahay marka in Israa'iil dhaqdhaqaaqiisa dhan ay la socoto yacni Islamic Online waxa ugu bashaaraynayaa ardayda qurba joogta inay ka baran karaan Qur'aanka Kariimka, higaada, axaadiista, ducooyinka iyo barbaarinta ubadka hab casri ah online ah adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda
maadaama Israa'iil dee bariga dhexe siyaasad ahaan marka la eego dhanka sirdoonka iyo dhaqdhaqaaq la socoshada ay aad maaragtay ugu horeeyaan waxa ay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqa safarka madaxweynaha dalka Turkiga ay si dhow ula socdaan sidaasi ayay qortay warbaahintan madaxweynaha dalka Turkiga waxa uu maaragtay safar isugu maray dalka Sacuudiga iyo sidoo kale Masar halkaas oo ay maaragtay ka arrinsanayeen arrimo isbahaysi la xiriira kaas oo Turkiga iyo Masar iyo Sacuudiga iyo sidoo kale xubno kale oo wadamo kale ah sida la filayo inay ku soo biiraan sida wadanka Pakistan oo kale iyo Indonesia oo kale inay ku soo biiraan halkaana lagu sameeyo gaashaanbuur la mid ah sida gaashaanbuurta NATO oo kale isbahaysi islaami ah in halkaas laga sameeyo wadamadaasi ay ka sameeyaan Sacuudiga iyo Pakistan waxa ay wada galeen heshiis dhigaya hadii mid kamid ah lagu soo duulo in si toos ah kan kale ugu soo duuli doono yani uu hawshiisa u qabsan doono ay ka dhigan tahay hadii Sacuudiga lagu soo duulo in Pakistan lagu soo duulay oo Pakistan ay dagaalka gali doonto sidoo kale hadii Pakistan lagu soo duulo iyada Sacuudiguna uu dagaalka toos u gali doono si aan gabasho lahayn arintaas waxa ay imaaday kadib markii ay xulafoobeen Imaaraadka iyo Sacuudiga oo dagaashan iyo India iyo waxa weeye iyo Pakistan oo dagaashan ayaa waxa markaasi xulafoobay Imaaraadkii iyo India ayaa xulafoobay kadibna waxa noqotay Pakistan iyo Sacuudiga iyaguna inay wax isku dhufsadaan hadii marka isbahaysigan Israa'iil ay leedahay isha ayaan ku haynaa uu dhaboobo dabcan bariga dhexe wax badan ayuu ka bedeli doonaa Pakistan oo nuclear haysata Turkiga oo haysta warshadaha wadamada Islaamka oo warshadaha ugu badan ee hubka iyo militariga soo saara haysta Sacuudiga oo dhaqaale badan haysta Masar oo ah wadanka ugu horeeya ee military ahaan iyo khibrad ahaan maaragtay ugu horeeya dhanka ciidanka wadamada muslimiinta ugu horeeya iyo sidoo kale Indonesia oo iyaduna ah wadan dadkeedu aad u badan yahay 200 oo milyan wax ka badan u yahay inkastoo Pakistan laftigeedu aysan yareysan oo 200 wax ka badan oo dad yahay ku nool yihiin marka gaashaanbuur ayaa halkaas la rabaa in laga sameeyo waxaan rajaynaynaa arintaasi in ay dhabowdo sida ugu dhaqsiyaha badan hagaag ugu dambeyntii madaxweynaha Mareykanka ayaa maanta hadlay isagoo hadlaya ayuu waxa uu sheegay in marka uu diyaaradda saaran yahay uu cabsado cabsi darteedna uusan seexan dhaha uusan iskelin waxa la dhigis I don't sleep on planes. I don't like sleeping on planes, you know. I like looking out the window watching for missiles and enemies actually. But he said, "Sir, we have a place prepared for you and we can meet after you've rested." I said, "No. wuxuu leeyahay markaan diyaaradda saaranahay ma hurdo diyaaradda waxaan fiiriyaa uu leeyahay daaqadeeda waxaana markaas iska waardiyeynaya oo aan eegayaa buu leeyahay gantaalaha ay cadawgu soo tuuraan sida darteed ayuusan baseexan sidaas buu sheegay hadaba cadawgu uu ka baqanaya yaa waay dabcan Mareykanku waxa uu ku jira wadamada ugu badan ee adduunka caalamka cadawga la ayuu ku jira quwadiisa iyo awoodiisa uu leeyahay dadka ku burbursan laakiin waa la nacib yahay top 2ga tirigu soo galaya marka la eego nacaybka loo qabo marka cabsi buu qabaa wuxuu is leeyahay bal marka diyaaradda hawada gasho ama maaragtay qoliye cadawga ah Ruushka iyo Chinaha iyo Kim Jong Un iyo qoladiisii iyo qoladii cadawga ah ama gantaalta kugu soo ridaan hawada kugu qarxiyaan uu leeyahay marka odaga cabsi baa dishayba waa cabsanaya wabuu haystaa weyn maahane waxa weeye waa ninka fuliga oo dhimashada ka baqaya aad baad mahadsantiin saaxiibayaal intaas baan ku soo gabagabeynaa dad nagu cusubtaa muuqaalka like sarada saarin si uu muuqaalkeena meel dheer u gaaro subscribe baan nagu soo biir hatta nagu soo biirin si aad ula socoto muuqaaladeena xiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wargelin muhiim ah ma doonaysaa waalidkaaga oo dhintay ama sariiryaal oo xanuunsan in lagaaga soo cumreeyo bisha Shacbaan oo ah Ramadaan kadib bishii ugu soonka badnaa subanaheena Muhammad nabadgeliye naxariis korkiisa ahaatee waxaana fursadan kaga faa'iideynaya shirkadda At-Taqwa oo ku sameysay qiimo dhimis ballaaran inta lagu guda jiro acmaasha cumrada waxaa lagu soo duubayaa muuqaallo ku saabsan qaabka ay cumradu u dhacday haddaba wixii faahfaahin intaa dheer nagala soo xiriir cinwaanada iyo taleefannada shaashada kaga muuqda